السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. guys meel kasta joogtaanba kusoo dhawaada cashiradeenii physics-ka ayna aad inooga barateen inaynu soo dhigno channelka. fadlan haddaad channelka ku cusub tahay ha iloobin inaad subscribe saarto gambaleelkana aad furato si ay kuu soo gaaraan cashirada aynu soo dhigi doono channelkani oo taxanaha ah. haddaba cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay micrometer screw gauge inagoo horay ugu soo hadalnay vernier caliper and how to use vernier caliper and how to measure something or things by using vernier caliper. kulli waynu kasoo wada hadalnay laakiin maanta waxaynu ka hadli doonaa micrometer screw gauge. fadlan haddaa ku cusub tahay channelka ha iloobin inaad asxaabtaadana aad la wadaagto. haddaba maanta cashirkeenu wuxuu noqonayaa micrometer screw gauge kaasoo mid ka mid ah instrumentska misana qalabyada loo isticmaalo in wax lagu cabiro smaller dimensionska dhaxroorada aadka u yaryar in lagu cabiro. cashirkan dibkii dabadiisa misana cashirka qaybtiisa dambe waxaan ku arki doonaa structure of micrometer screw gauge waynu ku arki doonaa inagoona mid walba mid ku taagsanayno oo target saarayno. haddaba micrometer screw gauge waa maxay micrometer screw gauge? aynu fiirino wax loo isticmaalo micrometer screw gauge. micrometer screw gauge waa aalad is used waxaa loo isticmaalaa to measure small dimensions in lagu cabiro small dimensions dhaxroorada aadka u yaryar such as sida diameter of thin wire dhaxroorka ay leedahay fiilada aadka u yar thin wire. haddaba sidoo kale waxaa loo isticmaalaa to measure in lagu cabiro even smaller dimensions dhaxroorada xitaa aadka u yaryar in lagu cabiro ayaa looga talagalay. dan halka aynu isticmaalayno markaynu isticmaalayno vernier caliperku looma isticmaalo smaller dimensions, very smaller dimensionska looma isticmaalo, laakiin small diameter oo loo isticmaalaa balse very small dimensionska dhaxroorada aadka u yaryar looma isticmaalo. the most popular one which we use smaller dimensions is a micrometer screw gauge. marka haddaba then vernier caliper markaynu vernier caliper ku isticmaalayno so sidaa darteed it is used waa la isticmaalaa micrometer screw gauge ku extensively si baaxad leh misana si xoogan strongly baa loo isticmaalaa in mechanical engineering dadka farsamo yaqaanada kuwaasoo markay dhisayaan fieldiga dhismaha markayna dhisayaan. aynu fiirino qaybaha uu leeyahay micrometer screw gauge. parts of micrometer screw gauge. qaybaha uu leeyahay micrometer screw gauge ha ku wareerin waa magac uu leeyahay apparatus misana instrument qalab magaciisa weeye. qalabkaasoo loo isticmaalo in lagu cabiro smaller dimensions dhaxroorada aadka u yaryar ayaa loo isticmaalaa. ko waa u-frame waxaana u-frame-tani waxaa loo isticmaalaa iyadana carrying anvil. waxay wadaa anvil ayay sidaa u-frame-ta. anvilkaasoo wax qaban doono dib dambe baan ku sharxaynaa. u-frame-ta iyada shaqadeeda waxaa waay keliya inay qaado anvilkani ay sido. waa maxay thimbalka marka shaqadiisa waa maxay thimbalkani shaqadiisa waxaa waaye carries circular rotating scale. wuxuu qaadayaa circular rotating scale miisaanka wareeganaya buu qaadayaa thimbalka. carrying circular rotating scale wuxuu qaadayaa miisaanka wareegsanayo mar allaala markii la wareejiyo sidoo kale wuu wareegsanay isagana. wuxuu wadaa circular rotating scale miisaanka wareegsanayo thimbalka. shaqadiisa waa maxay spindleka marka aan fiirino movies
moves forward or backward. Spindle-ka isagana wuxuu u soconayaa forward or backward, wuu soconayaa. saa darteed marka spindle-ka shaqadiisu waxa waaye moves, wax buu wuxuu u soconayaa forward, horay buu aadayaa, isna backward, gadaal ayuu aadayaa. when thimble is rotated, marka thimble-ka la wareejiyo, thimble-ka marka la wareejiyo, thimble-kii hore aan usoo sheegnay oo waday carries rotating scale, scale-kii wareeganayay mise miisaankii wareeganayay waday. marka thimble-kaas markii la wareejiyo, midaan spindle-ka hor bay u baxaysaa, markii haddana thimble-ka gadaal loo wareejiyo, spindle-ka iyada waxay aadaysaa gadaal, backward bay aadaysaa. forward kan hore markii loo wado forward bay aadaysaa iyada, backward hadii loo wado backward buu aadayaa. when thimble is la wareejiyo. what else? sleeve-ka maxaa loo isticmaalaa marka? sleeve-ka maxaa loo isticmaalaa? intaas waxay leedahay marka linear scale, linear scale, miisaan oo toosan bay leedahay oo millimeter ah. sleeve-ka waxay leedahay linear scale, miisaan toosan bay leedahay oo millimeter ah. ratchet knob maxaa loo isticmaalaa marka? ratchet knob-kani maxaa loo isticmaalaa? isaga wax buu kordhiyey allah. at the end of the thimble, at the end of the thimble, dhamaadka ee thimble-ka kani aan soo sheegnay, thimble-kani meesha ugu dambeyso, prevents the user from the exerting pressure on an object. wuxuu ka difaacayaa midka isticmaalaya inuu bixiyo exerting pressure, inuu cadaadis ku bixiyo. macnaha wax buu kordhiyo weeye kan, oo thimble-kani ratchet knob-ka waa kordhiye. marka at the end of the thimble wuxuu yaalaa, marka wuxuu ku yaalaa at the end of the thimble. shaqadiisana waxaa waaye prevent the user, midka isticmaalaya wuxuu ka difaacayaa inuu bixiyo cadaadis fara badan, oo inuu ku bixiyo cadaadis fara badan isagoo spindle-ka horay u riixayo misena backward u riixayo. on an object when micrometer screw gauge is measured, marka micrometer screw gauge-ku la cabirayo. aan fiirina waa kana micrometer screw gauge qaabishankiisa waaba kan. marka haddaba waxaa ku fududaanayso intii hadda aan soo sheegaynay. anvil-ka lagu sheegayo waa kana, symbol-ka waa midkani, symbol waa midkani a ujeedaan. symbol ma aha kani, waa framki weeyaan. marka framki waa kan waa ujeedaan, cafwan framki waa ujeedaan. framkan wuxuu wadaa marka waxa kaliya uu wado waxaa waaye anvil-ka ayuu wadaa. anvil-kan isaga shaqadiisa waxaa waaye spindle-ka iyo anvil-ka inay isku dhagaan. markii shay meeshaan la geliyo, dhexdaani shay markii la geliyo, shayga la doonayo in la cabiro, sida thin wire markii la cabirayo oo kale, waxaan kulli markii la cabirayo markii halkaan la geliyo, anvil-kan iyo spindle-ka baa isku imaanayo, kadib shaygiisaa baa lagu cabirayaa. sidoo kale warqadda oo kale, warqadda markii la cabirayo, warqadda inta isku jirto markii la cabirayo waa sidaan oo kale, laba dhexdaana la gelinaya warqadii, kadib anvil-kii iyo spindle-kii baa isku imaanayo. saxiix. marka haddaba waa maxay? aan fiirino marka sleeve-kii aan hadda hore usoo sheegnay, waa midaan sleeve, waa midkaan a ujeedaan. horeyna sleeve-ka waxaan ugu soo sheegnay inay leedahay linear scale, miisaan toosan inay leedahay, oo waa kana waa ujeedaan. insha allah cashirka dambe aan ku baran doonaa qaabka loo fiiriyo misena qaabka wax looga cabiro. midkaan waa logan, waa kana waa loo isticmaala, waxaa la isticmaalaa isagana in lagu xiro markii warqadii meesha aad gelisay inaad doonaysa inaad cabirto, inaad xirato dhab suusan miisaankiisa dhaqaaqin. symbol-ka waa kan waa ujeedaan, symbol-kii lagu sheegay waa midkaan, isaga wuxuu ka sareeyaa, midkaan buu ka sareeyaa symbol-ka. marka symbol-ka
wuxuu wadaa wuxuu sameynaya circular rotating scale. wuxuu wadaa symbol waa kan kana ujeedaan waa symbol circular rotating scale. wuxuu sameynaya wuxuu wadaa miisaan wareeganayo waa midkan 40 30 20 hoos sii socdo. waa maxay marka ratchet knob ka soo sheegin waa maxay main scale ka kuwan main scale iyo aan kala arki doona insha Allah. symbol waa kana ratchet knob kan waa kan waxa ratchet knob ka isaga kaliya waxa wuxuu difaacayaa inuu midka bahalkan iyo micrometer screw gauge isticmaalaya inuusan wax xoog misana pressure cadaadis uusan ku bixinin markuu isticmaalay symbolka inuusan cadaadis xoog ku bixinin ayuu ka difaacayaa. insha Allah cashirkeena halka baa ku soo gabagabeynayna. cashirkeena cashirkiisa xiga intaan ka kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.